odayaal waqti xaadirkan waxaa khadka taleefanka telefishinka MMTV si toos ah ugu jira xogayaha guud ee qaaradda Yurub ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Maxamed Carab Wacays ugu horeyn mudane xogaya waa ku soo dhaweynaya MMTV ku soo dhawow bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xaalka guud ee wadanku waqtigan marayo sidee buu kula muuqdaa ياسر adiga iyo MMTV ba waan dhawahay waan idin salaamayaa runtii xaaladda guud ee Soomaaliland maanta xaalad warwariyo argagax la weeye dhinac kasta oo laga eego aday tahay siyaasad ahaan nabadgelyo ahaan nolol ahaan runtii dareen aad iyo aad u aan qurux badnayn baa runtii jira sawiraan qurux badnayn baa muuqanaya muwaadiniinta reer Soomaaliland dhanna runtii damqashay iyo warwarba maskaxdooda iyo maakooda ka guuxay mudane xog haye waynu la soconaayo xaalad ayaa waqti xaadirkan iyo muddo imaka ku sii siqaysa bil ay ku jirtaa magaalada Laascaanood xaaladaas oo ah xaalad colaadeed oo dagaal bal xaalka Laascaanood ay ku sugan tahay iyo hadallada kala duwan ay xukuumaddu ku sheegtay in ay argagixiso kula dagaalamayso magaalada Laascaanood sidee bay kula muuqdaan horta runtii sawirka dhabta ah ee Laascaanood waxa si faahfaahsan maanta iyo xaaladda guud baa uga warramay murashaxa xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo aan anigoo ku hadlaya afkii xisbiga wadani dalalka Yurub aan wakiil uga ahay xisbiga wadani aan runtii aad iyo aad u taageersanahay oo soo dhaweynayno kuna garab taaganahay hoggaanka xisbiga iyo go'aanka waafiga ay maanta maartay ka soo jeediyeen adiga su'aashaada haddaan soo noqdana runtii dagaalka Laascaanood ka soconaya waxa weeye dagaal aan runtii loo baahnayn oo wax la sameeyay oo xukuumadda maanta waqtigeeda dhacay ay samaysay shacabka reer Soomaaliland oo dhimanaya oo qaxaya oo dhibaatoonaya hantidoodii iyo maalkoodii oo burburaya arrimahaas oo dhan runtii iyadoo xanuunkooda iyo damqashadooda ay leeyihiin oo muwaadin kasta iyo qof kasta damiirkiisu nool yihiinba ay nool yahay ay u muuqanayso ayaa haddana runtii hadallada ka soo baxaya ee isburinaya ee qof waliba wuxuu doonaa iskaga hadlaya xukuumaddii waqtigeeda dhamaaday oo mar aynu leenahay ay leeyihiin inaynu ka maqlayno argagixisa ka dagaalamaysa oo mar erey bixin kale ay u isticmaalayeen leeyihiin kooxo kale aragtiya oo mar ay leeyihiin ciidamadii qaranka Soomaaliland ba soo dhaweynaya garaadada iyo ragga halkaa ku sugan oo dawladda qayb ka ah marka runtii hadallo isburinayo oo aan xor lahayn oo meel loo raaco aan lahayn midhihii ka dhashayna yihiin dee maanta dhiigga daatay ee dhinac walba ciidankii qaranka Soomaaliland iyo shacabkii Soomaaliland ay isku mudxsadeen maartay dee dhaawacinta runtiina gaarsiiyay baa ayaa ka dhashay midhaheeda ay noqdeen mudane xog haye dhawaan waxa hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland hadalka gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif siyaabo kala duwan ayaa loo kala turjuntay ninba dhinac buu u qaatay hadalka gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif adigu hadalka gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif sidee buu kula muuqdaa runtii xisbi baan nahay xisbi qaran baan nahay xisbi qaran mowqifkiisa iyo go'aankiisa guud ahaanba gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood xisbigu maanta ayuu si waafiya uga hadlay anagu waxaan doonaynaa oo naga go'an ka xisbi ahaan anagoo qarankayga iyo maartay bulshadeeda kamida in wax kasta dariiq kasta oo nabadgelyo ay ku imanayso dariiq kasta oo dhiigga muwaadinka lagu badbaadinayo dariiq kasta oo lagu soo afjariyo colaadan in loo maro cid kasta oo dariiqa wanaagsan u marayso oo magac doonaha sitee xaaladda ku soo celinaysa si ay ahaydna lala shaqeeyo oo la iska rabtaago mowqifka runtii xisbigu ka weeyaan ugu dambeyntii mudane xog haye Soomaaliland waxa ay waqtigan ay ku jirtay xaalad doorasho haday noqoto waxa isa saarnaa oo ay dadka sugayeen doorashooyinka kala duwan madaxtooyada iyo tii ururada bal xaaladda hadda isu bedeshay xaalad dagaal sidee dalku arintan uga bixi karaa oo loo dhaqaaqi karaa wadanka xaalad doorasho iyo dimuqraadiyaddii ay muddada dhowrkii 30 sano ee Soomaaliland ku faaneysay ee beesha caalamka ka iibinay sidee loo siyaan baqaadi karaa walaal horta dee xaaladaha dhaca runtii xaaladuhu qaarna waa qaar ay bini'aadamku sameeyaan qaarna waa kuwa maartay
aan dee bini'aadmigu samayna dabiiciga ah ee dhaca sida masaayibka ku dhacaya Turkiga oo kale ee waxba laga qaban karaynin laakiin tan Somaliland ka jirta waa mid uu musabixi sameeyay laascaanood waxa ka horreeyay in wada ognahay in gobolada inta badan Somaliland gobolka Maroodijeex Togdheer Sool waxaan leeyahay Sanaag dhibaatooyin noocan oo kale ay xukuumadda waqtigeeda dhacay ka geysteen oo dadkii reer Somaliland lagu laayay waxaynu ognahay isku day kasta in hareer isku soo deeyay murashixii xisbiga wadani oo u taagan inuu dalkan hoggaankiisa uu la wareego madaxweyne ayaa la isku dayay hadcad in gaar la jirsiiyo boqolaal muwaadiniin reer Somaliland baa la xidhay hablihii reer Somaliland baa shaariciyada wixii nimanka darajada ciidamada sida waxay ku sameeyeen arkeene laabta la dhacay dhowr iyo 20 hablood oo yaryar baa bartamaha Hargeysa laga afduubay oo xabsiga la geliyay waxaas oo dhacda oo taxana musalsal bay ahayn dadka reer Somaliland ay daawanayeen inay arkayeen ujeedada ka dambeysana waxay ahayd inuu kursiga ku sii fadhiyo musabixi oo aanu dalkan ka tagin qayb ay ka ahayd markaa inuu yiraahdo ururaan furaya ururo la furayna ma jirin ururo sharciina runtii ma ay jirin dhacdooyinka noocaasina oo ay taa maanta gobolka Sool magaalada Laascaanood ka bilaabantay ka dambeysay ujeedada waxaas oo dhan loo sameeyay wax kale ma wax weeyaan kursiga in xaaraana iyo dhiigga muwaadinka oo ku sii haysto dalkan marka hore inqilaabku mu qabsanin doorasho ku yimi doorashaanu kaga tagaya dariiq kasta oo loo mariyo dadka reer Somaliland jiritaanka iyo badbaadada Somaliland baa waxay ku jirtaa in dalka ay doorasho ka dhacdo in isbedel yimaado in kulmiye reer Somaliland 10 sano iyo 12 sano u dambeeyay talada hayay halaag iyo hoog buu baday marka xisbiga in la iska qabto si ummadda inta hadii loo badbaadiyo taasaan runtii dadka reer Somaliland go'aankoodu yahay haday urur tahay iyo hadii muwaadiniinta leenahay tahay bana ujeedada ka dambaysa waxa weeyaan in kursiga si xaarana ugu sii fadhiyo musabix ugu dambeyntii anoo ku soo gabagabeynaya mudane xog haye waraysigan iyo waqtigaaga qaaliga ee nasiisay fariinta guud ee adigoo ku hadlaya afka qaaradda Yurub ee xisbiga mucaaradka wadani aad halkan uga direysaan maxay noqonaysaa guud ahaan shacbiga Somaliland haday noqoto xukuumad haday noqoto xisbiga mucaarad iyo dad yowga gobolkaasi Sool iyo magaalada Laascaanood isku leynaya halkan runtii fariintan uga soo diray waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan leh aan dib dhac lahayn in loo joojiyo dhiigga taadanaya oo cidda mas'uuliyadda ay saaran tahay waa Muuse iyo xukuumaddiisa ay joojiyaan qabashada dhiigga muwaadinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaarantineeyay arrinka kale oo soo jeedinay waxa weeyaan cid kasta oo Somaliland ka baxsan oo doonaysa inay faragelin ku samayso arrimaha Somaliland ee dakhiliga in iyaguna ay faraha kala baxaan oo aanay dani ugu jirin inay maartay Somaliland arrimaha soo farageliyaan kuwana saas baan leenahay muwaadiniinta guud ahaan reer Somaliland dhan baa soo jeedinayaan waxa weeyaan maanta intii xukuumadda kulmiye ay khasaare noo geysan kareysay way noo geysatay waxaynu gaarnay runtii taariikhda meel aynaan weligeed hore u gaadhin filaynina inaynu gaadhayno oo ay maanta arkayno muwaadiniintii reer Somaliland dhalinyaradii iyo hooyooyinkii iyo haweenkii iyo hantidii ummadda oo waxa weeye dumaya oo horteena ku dumaya waxaynu u baahanahay inaynu dalkeena badbaadsano qarannimadeena ilaashano shalay waxaynu ka fikiraynay laga shaqeynayay muwaadinka reer Somaliland oo hamigiisa hankiisuba ahaa waxay ahayd inaynu helo aqoonsiga oo inta kaliya inaga dhinay maantana waxa weeyaan runtii barmadow iyo foolxumo ayaynu 20 sanadood uu dib inoo celiyo barmadow inagu noqday xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu marka muwaadinka soo dalkan inaga leh muwaadiniinta reer Somaliland baa leh badbaadadiisa iyo jiritaankiisa iyo ummaddu waa family kaliya reer Somaliland hadduu Sool joogay iyo hadduu saaxil joogay iyo hadduu gobolada inta ka hadhay kala joogaba marka dadkaas waxay u baahan yihiin runtii in ay dhinac uga soo wada jeestaan waxa la leeyahay qarannimadooda duminaya iyaga iska horkeenaya isku dilaya oo xukuumadda kulmiye marka aynu qarankeena wada ilaashano cadow ka weyn maanta Somaliland oo aan kulmiyaha ma jiro cidda dhiigga daadinaysa waa kulmiye cidda hantida burburinaysa waa kulmiye cidda ummadda kala qaybinaysa waa kulmiye cidda waxba ka xishoonin wax way kulmiye marka cadowga qura in leenahay iska difaacna ma leenahay
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa xogayaha guud ee qaaradda Yurub ee xisbiga mucaaradka wadani mudane Maxamed Carab wacays aad iyo aad baan mudane xogaya kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ee telefishinka MMTV aad siisay